14 Oktoobar maalin Sabti ah sanadkii 2017 saddex sano ka hor isgooska Soobe magaalada Muqdisho xasuuq ugu xumay abid ka dhaca Soomaaliya kadib markii gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay uu ku qarxay isgooskaasi waxa uu ahaa qarax ugu foosho xumay ka dhaca magaalada Muqdisho tan iyo intii martigelinaysay weerarada iyo qaraxyada ka dhaca caasimadda in ka badan 500 oo ruux muwaadiniin Soomaaliyeed ayaa ku nafwaayay qaraxaasi halka tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacantay meedadka dadka ayaa noqday mid la kala saari waayo ama qof kale aqoonsan waayo maadaama dadka jirkooda ay gubteen isla markaana la kala garan waayo dadka qaraxaasi ku nafwaayay ayaa dhamaantooda ahaa dad shacab ah oo aan waxba galabsan oo xilliga qaraxaasi dhacay isticmaalayay wadada lana kulmay qaraxaasi galaaftay naftooda qulubta muwaadiniinta Soomaaliyeed weli kama aysan go'in xasuusta xasuuqii 14 Oktoobar ka dhacay isgooska Soobe magaalada Muqdisho haddaba adiga daawanaya muuqaalkan maxaad ka xasuusataa xasuuqii 14 Oktoobar